بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii cuntada iyo caafimaadka waxaan mar walba uga hadalnaa arin xaqiiqi aad muhiim u ah aan isleenahay yani waxa waaye bulshadeena way u fiican tahay maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago cajlad yar oo ayaan dhawed aan ka akhriyay shabakada yani warbaahinta CNN-ta ee caalamiga ah marka waxayna ka hadlaysaa dhibaatada buurnida ama faatka uu leeyahay faatka ama qofka markuu burnaado dhibaatada ku imaan karta khaasatan caruurta iyo dhalinyarada marka sanadkan yani waxa weeye waa sanadihii ugu dhibka badnaa hadda waxaan ku jirnaa aadka u kubcayay yani faatka dadka yaryar ee dhalinyarada ah marka newska haddaa kor u akhrino waad arki doontaan yani 1995 ilaa iyo laga gaaraa 2014 kansaro badan oo waxaa soo baxay mataqaanaa lagu xiriirinayo in ay keeneen burnida ama faatka ay keeneen marka waa kansaradii lagu arki jiray dadka waaweyn badanaa ayaa maanta waxa uu galay dadka caruurta yararka ah ayuu xaggoodii aaday sababtan waxaa weeye waa cuntada iyo dietka iyo burnida marka aad ayay iskula xiriiraan waana arin aad u weyn oo wadamo badan oo wadankan mataqaanaa wadamada galbeedka kaliya aan ahayn wadamada Afrika aad ayuu ugu soo badanayaa marka waa shay loo baahan yahay qof walba oo waalid ah maanta inuu xaqiiqi aad iyo aad uga taxadaro ilmihiisa marka ii sheeg waan arki doonaa cajilada laakiin cajiladan waa wake up call ayay wax u tahay dadka ma garanaysaa waalidiinta ah dadka macallimiinta ah dadka caruurta yaryarka ah la xiriira ama mataqaana cuntada siiya marka insha Allah waxaan rabaa in aad wada fiirsataan cajiladan marmar ayaan kusoo tuuraa waxyaalaha bulshada anfac u ah aan isleeyahay way ka faa'iidi karaan cajalada waxa ku qoran oo ujeeda newska BMI waa ka sheekan doonaa waxa uu yahay iyo BMI ga sida aad ku garan kartid ama ku ogaan kartid adigoon dhakhtar aadin ujeedaan newska wadamada mataqaanaa dhibka burnida hadda la tacaalaya laga bilaabo 1980kii waa 73 wadan ayaa waxa weeye waxa saameeyay dhibaatada ay leedahay burnida ama qofka inuu faad noqdo obesity waxa ay yiraahdaan waxaana keenaya cuntooyinka noocaas oo kala ah waxa weeye dabka la geliyay ma garanaysaa saliida miiran leh dhibaatada markay dadku ay magaalada u soo guureen dhibaatadu mataqaanaa u timaad ay kamid tahay dhibaatooyinka ma garanaysaa burnida ay keento waxaa kamid ah sonkortii mataqaanaa balaadhiigiyo kor u kaca macaanka qaybta labaad stroke oo qofka kusoo boodo wadna xanuun ma garanaysaa kansarkii iyo xanuuno badan oo dhimirka ah ayuu keenaa dietka oo aad bedeshid adigoo si aayar cuntada u cuntid iyo exercise oo la imaatid ayaa waxay daawo u yihiin ma garanaysaa obesity-gii ama burnidii faraha badneed in markaa lala dagaalamo insha Allah casharkeena maanta waxaan rabaa inta inaan ku joojiyo dhibaatada ay leedahay in mataqaana qofku faad uu noqdo siiba dadka yaryarka ah caruurta because aad adkaanaysaa in markaas waxa waaye qofku uu la weynaado oo markaas caadi uu noqdo ama aad burnidii aad la dagaalantid marka saas taxadar weyn waalidiintu waa in ay siiyaan
caruurtooda in mataqaana ay noqdaan caruur caafimaad fiican leh haysta saasna waxay ku imaan kartaa ilmihii noloshoodii adoo ka taxadaraya cuntadii ay cunayeen adigoo og adigoo mataqaana ilmihii ilaalinaya weydkoodii adigoo ilmihii waxaa weeye dietkoodii ilaalinaya adigoo waxay cabayeen oo cunayeen iyo hurdadoodii iyo noloshoodii qaab dhaqankoodii ee nolosha mataqaana qaab nololeedkoodii ilaalinaya marka arrinkaas yaan la sahlan because waxaa weeye dhibaatada caafimaad xumada waa meesha ay ka bilaabato insha allah intaas ayaan rabaa maanta inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeeni maanta cuntada iyo caafimaadka inta aan iskaga arki karno barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan kaga tegayaa sidaas iyo salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu